ودني maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay aladweyn allahayo kadiguri barwaaqo baladweyn allahayo kadig beerta raaxada baladweyn allahayo kadig xera baraare baladweyn allahayo balayada hareer mare aryaadha heer beledweyne balaayada horta allah hareer mariyo biyaha iyo debka masiibooyinka ay ka mid yihiin dadka lagu masiibeeyay allah ka badbaadiyo shacabkii beledweynena biyihii ka qaxeen oo bannaankay dhooban yihiin la qaarna biyahaaba la tegay waxa ba iyo hoog iyo jabna soo mara ummadda Soomaaliyeed waxay ku badbaadi jireen gurmadka ay isu gurmaan dadkii heer beledweyne Soomaaliyeed halo gurmado oo nimba taagtii ha tilaabsado qof walba uu taagtaa hal heerin war maamulkii magaalada beledweyne dadka barakacay ay ka mid yihiin baa la yiri xafiisadoodana waxa la yiri biyo ku shirey biyo oo biyo madaxda hada ka bixisoodan miya war masiibo hoob ku idlaan wiin ilaa yar halin koon ma ka tabaaso ilaahay moodiye arada waarin marba hadii masiibo timaado madax mijmeelay dhaafaysa ma jirto ee balaayadaas allahna mootiyo war sagaarada hatta biyo ma qaadeen sagaarad sheegaysa wariid hatta ma ka fakanaa kule dadkiisa biyaha ugu galaaro war gudoomiye hore gobolka banaadir allah oo naxariista gudoomiye yariisow iyo intii la dhimatayba war gudoomiye ka horeeyaan ku sheegaya taabid war tarsan waa safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya war Mugabe waa gudoomiye xisbi arooya Yusuf Madaale intuu aada ayaanta dadkana waa gurma jiriye $1 ku dhisa dalkaaga waa kilaamiyaal ku dhisay ma looga daydo war xanuunkii idinku dhici jiraa idinku dhacay naga dhageysta warka taabid wuxuu yiri dadka reer beledweyne dhammaan ummadda Soomaaliyeed ha u gurmatooyaan qolo gaar ah iyo maamul gaar ah lagu hadlaynay war gurmadkii ugu horeeyay oo dawladdu dirta maanta wuxuu ka tagay beledweyne diyaarado kalena waa tagayaan la yiri maalmaha soo socda maanta ra'iisul wasaare khayre way garbaha ka taagnaayeen lugta gareen lafta gareen iyo xaf gareen wuxuu magacaabay guddi ka shaqeeya gurmadka fatahaada marka uu la dardaarmayna wuxuu yiri dadka waa in lagu gurmadaa si degdeg ah dawladnimada waa in la tusaa meel kasta oo ay joogaan waa in hooyada Soomaaliyeed ee biyaha gurigeeda ka saareen aysan dareemin xanuunka gaaray baladweyn allahayo balayada hareer mari amiin war ma haysaane maanta waxaan ogaaday madaxda Soomaalidu inay kala roonayn mid kasta ana u dhaqmayo marka la doorto wixii ka dambeeya sidii inuu kursiga qori ku qabsaday iyo xoog marka nabad iyo nolol waxa lagu eeday jiray inaysan dhaleysha iyo hadalka u dulqaada karin maanta daniya la mid noqday madaxweynihii Puntland shirkii baarlamaanku furay khudbad dheer oo khayr badan aan qabta uu ku leeyahana waa u jeediyay laakiin waxay ugu darayd markii uu xildhibaan cawil leeyahay su'aalo weydiiyay wuxuu yiri madaxweyne abnigu inuu xun yahay waxa tusaale u ah masaajidda qunuud laga bilaabay maamulkaagu inuu iskhilaafsan yahay waxa tusaale u ah adiga iyo madaxweyne ku xigeenkaaga marka 9 bilood joogtaane intaan baarlamaanku shacabka ka turjumin kuraasta baneeyo yiri kadib madaxweyne dani sidii in kursigii laga qaaday buu u xanaaqay hoolkiyo mukayf ka daaran yahay qabowjiyaal badanna waa dhiday wuxuuna yiri xildhibaankaani dawladii iga horeysay oo fadhiidkaaheedu kamid ah waxay qabteen lama arag aniguna ma ahaybuu yiri nin loo hanjabi karo iyo nin hadal wax looga qaadi karo baarlamaanka la arinta Puntland iyo xaaladaha ka jira waa looga xogrooya kadibna asoon dhag la qabta lahayn ayuu si haleelay irida uga bax wareenaagas mayba ka sheenay ka aalay ani shaleelay taliye oo madaxweyne daniyo raali ah maxaa loo dhihi waayeen maday isaaqo waa saad u tiriye waxaan maqli jiray shaleedeya
shablay haade diriirin warnimaya xaalka marka ustaana kala Cabdiweligaas wuxuu dhihi jiray adeer way afkaada madaxweyne deni wuxuu dhihi jiray annaga iyo dawladda federaalka waxaan isku hayna fagaara saxaafada ay joogtaan ugu doodno maanta ma hal xilibaan hadalkiisu u dul qaadan way waryaalahan war ma haysaane jumhuuriyadda Soomaaliland way salbataynaysaa oo aan la yaabanay wariyaashii iyo dadkii haldi jiray oo dhan ee afayeenada ahaa way soo raafto kabigood way ka soo wada yaaceen marka jumhuuriyadda anagu aqoonsi baan u doonaynaa Muuse Handaraab xaqu u sii handaraabaya war maayirkii waa la hargeysa ee yiri muqdisho dadka jooga hargeysa ka roon wuxuu isla sawir madaxweyne Muuse Biixi kadibna Biixi sawirka ka carooday wuxuu yiri waan isla kay sawiraysaa dadkii hargeysana waxay isku haysaa dhulalkii war madaxweynaha sawirka ma lagu gaaday war adeero maayir ku xigeenkii hargeysa ee in caga weyne wuxuu yiri madaxweyne Biixi markuu diyaaradaha fuulo buu agtu akhristaa war maayir ku xigeenku ilaa waa gurwada saddex digla war fanta ku dishay anoo guuladaha oo nacabnay hora waxa loo yiri waqooyigan wax waa jiraan waxna jiidkay ku soo jiraan waqooyigan wax waa jiraan waxna jiidkay ku soo jiraan war Cabdulla waa runtaaye اعتراف wuu jira laakiin kuwa kale oo اعتراafayana jidka way ku soo jiraan warya beena shawsi warya sharciga lagu shirto warya sharci ma haydan warya khuri bujoogi hay naga tan ilaahay ka baqa nabad nidaam jaaliya nidaam warya hadii islaam taadil warya